kusoo dhawow channelka walaasha Marin Cali subscribe saar haddaad ku cusub tahay haddii aad ila joogtiin like dhac ku sii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabtayda qaaliga soo dhawaada channelku waa channelkii walaashiin Maryama Cilmi Doon kusoo dhawaada maanta waxaan wadnaa wiil leh waxaa la ii geystay dulmi oo waxaa la igu sameeyay waxaa leeyahay waxaa la igu sameeyay gabar aan naaga isqabnay ninka la igu guursatay ayuu leeyahay kusoo dhawaada barnaamijkeeni oo falaqayn ku wadnaa waxaan ku falanqaynaynaa wiilkan ayaa hadli doonaa inta badan wiilkan ay haysataa wiilkan waa wiil maskiin ee kulay wajigiisna ka muuqataa masaakiinimada iyo dhibaatada arkays laakiin waxaaba ka sii daran adoo lagu qaba nin kala guurso ya wala dumaro ninkaas ilaahay in gargaar wiilkan ay wuxuu leeyahay social media maan lagu wareejinayo wuxuu leeyahay gabar ayaa anoo qaba nin iga guursatay Kenya joogtay Kenya ma Minneapolis meel soo deganay mar guursaday 7 cunug naag ma haysta 7 cunug adoo haysta ninka la gabaran hadda inta ninkaagiyo taagin uu qabo inta fakat ninka dhab isku siisid gabarna saxaabe soo dhibaato ma aha abaa on xaalka ma aqaan laakiin ninkan si fiican u dhageystay hadalkiisa waa nin maskiin wajigiisna ay ka muuqato masaakiinimada iyo qaabka u yaala walaal dulmiga soo degdegaal iska ilaaliyo ara dulmiga xaara dulmiga wax fiican maaha walaal dulmiga bedelka dulmiga adag geysan lahayd hal ugu geysto saasa fiican dumaro idinkoo caruur haystiin ilmo haysatiin ya dumarka bedelka dadka u geysan lahaydeen in liin geystaa fiican please gabdhow saas isku dhaama ilaahay ka cabsiina ayaa wax walba lagu horseedaa ninka hadaa nacday fur khalaas markuu ku furo kabacdi adigoo wali xorriyadaada iyo nadaafadaada iyo sharaftaada wax kulli ay ku dhimaystiran yihiin si qurux badan uga tag maxaa qaldan adoo ku qaba kaan inta fakatid ninkan dhab isku siisid maxaa wajixumo iyo foorxnaa si dhibaatada isku geli kulay waad gabar kulay doonatay nin kale haddii aad batayba ooba nin kale rabtid oo ninkan aan nacdid si sharciga ilaahay banay Soomaha sharciga ilaahay banay kuri abow anigu ma rabo mana ku baahani iska kay fasax adigoo free laakiin asoo ku qaba inta fakatid luqluq martid oo meelaha marmartid kabacdi nin rab isku siisid adduunkaaga iyo aakhiradaada meesha waa ku dhamaanaysa Soomaha dimbi dheer waa galaysaa ilaahay ka cabsiinadu wax fiican wallahi billah gabdhow gabaraha tahay naaga tahay mahno wayb ku dhacay Soomaha horta naagta 7 cunug haysto wallahi nin guursama dhahayn sababtoo iyada mashquulkeeda dhabaala haysto naag ilmiintaas leeg haysto ninkaale madax ka galmo ma dhahaynba laakiin lacala haday dhacdo oo wayb ilaahay amarkiis ay taas dhacdo waxaan dhihi lahaa si qurux badan kale ku guurso si yar sharaf leh oo kale ku guurso inaadeeray ku guurso gabdhaha Soomaaliyeed gabar kasto horta waa jirtaa khaladaad waa jira oo dadku isku wada mid ma aha ya lacala haday kugu dhacdo oo maagtid inaad guursatid oo nin kale inaad guursatid maagtid si xurriyad ugu bax lacala hadii ay dhacdo in aad guursatid nin ma lagu diiday wiilkana u jeedo wajigiis masaakiinimada iyo rafaadka ka muuqdo nin soo daalay oo ilmihiis iyo dadkiisii ehelkiis u daalan waa u jeedaa ya qof sidan oo kale u daalan walaalay oo raali ku naaga horta nimanka raali u fiican ma arkaan xadaar aan waxaan arkay gabar ninka ninka ayada raaliga u wanaagsan ma aragto wax masiibo kale daba orda ninka ayada u wanaagsan ninka ayada jecel ninka ayada u fiyow ninka ayada dhaqaaleeya intaas dhan ma aragto ya maxaa qaldan ana yaabanahay waray gabdhaha noocaas camal waxaan arkaa inay habaar qabaan habaar waay waxaas habaar lacala haddii aad isku aragtid reerkaaga ku fiicnaayo oo cidaada nabad waa lagu ilaystay abaayo waa lagu ilaystay quraan isaaro ninkaaga cidaada u noqo please ya ninka dadka qaar lahaayeen oo kale waa lagu ilaystay marka waxaan dhihi lahaa ani gabar kasto oo muslim oo wanaagsan wallahi ninkaaga iska dhaq wallahi ninkaada Allah ku tuso ninkaaga cidaada Allah ku tuso ya maxay tahay gabadh markuu ninku fiican yahay ninka had duruufta ka muuqato fiiri dhibaatada ka muuqato wajigiisa laga dheehan kara bal fiiri sidoo u kala siibin fiidiyowgiisa markaan fiirsaday isu hadlay masaakiinimada qaabkiisa gabadhaas walaasheen isu dhahaada artay videoda isu gulgul wada aragtay inaad aragtayna laga yaabo videoga laakiin sawirkiisa soo qaatay
sawirkiisna waxaan usoo qaatay gabdho badan oo waxaa jira oo nimcada haystaan aan arkaynin aan rabaa inay nimcada wax ka ogaadaan nimcada haysatiin ninkaagii ilmahaagii waxaa hadda isku haysid wallaahi bilaash la waalanaysaa iimaankaaga gadaal dhuuqso ilaahayga ka cabso istighfaartaada badso gurigaaga quraan ku akhriso walaale macaane adoo ilmahaaga haysto oo ninkaaga haysto cidaadii haysatid haddaa inta hirjug meel kale ku dhahayd ka waran masiibo ka weyn maa jirtaba masiibo ka weyn inay jirto ani ma aaminsani waxaan idin dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed dad islaam ah aan nahay dad diin celinaysaan nahay dad wanaag iyo isku faraan nahay please dulmigaan iska yareen dulmiga wax adduunka dhawaan ugu qarribee haddana qofka aad dulmi ka gashid ma daahaysid haddaad gabadhaas way guursatay nin kale guursatay nin kale iyadoo ninka aan qabayn nin kale guursatay yaa inay soo daahina laga yaabaa ninka iyada hig galaa ama ninka iyada ay guursato uu dilo uu aajaro danaha gaarka uu ku leeyahay markuu ka helo inuu aajara laga yaabaa bal ka waran dhibaatadaas iyada miisu keeno lacala hadday dhacdo ilaahayna ma tusee lacala haddii ay dhacdo ilaahayna ma tusee kolley ilaahay ka qabto ayadana qalbigeeda la soo hanuuniya hadiyee haddii ay dhacdo oo ninkan gabadhan uu leeyahay way qiyaantay way nin kale guursato anigoo taagan leh ninkaas ayada nin qabrigeedu qodaay inay madax u gasho laga yaabaa ya ها طبعا بلو آدم واي محل يقع نفسنا واسوقشي نفسنا دا سوقشينا يقول ما دايسي نفسنا دا سوقشي قف كل نفسك هاقلا وكور استاقيسا waxaan ku dhiilaa gabdhaha Soomaaliyeed dadka wanaag u saaxiibka ah oo walaalaha ah oo islaamnimada ay ku dheer tahay isku xishooda diintiina ilaashada wanaagiina ilaashada sharaftiina ilaashada qofka ilmaha qaban waaba ka sii daran tahay war ma hadaa ilma qabtid wallahi dhibaatadeeda ay leedahay ilmahayna korsada ilmihiin fiir generation soo bixinaysa kuwiyaad ka tagaysaa dad kale ta madax u galaysaa ninka aan waxaan dhiilay naagta ninka ilmaheeda u fiican kortaan kors inta nin kale ku mashquul leed ilmahaaga inaad aragtid oo korsatid oo wanaajisid waxay ku dhaantaan nin waqtiga iskaaga lumin lahayd kuwan ku dhadhaq ku hagaaji ku nadaafi ku qurxi jawigooda u dhis baahida gaarka ay qabaan ogow yaa baahida ilmaha gaarka ay qabaan ogow bedelka inta nin ku mashquulsho oo hawadeeda iyo adduunkiisa gali lahayd oo asagoo oo nin kale ta waqti gelin lahayd ilaa nin marka guursato ciyaar ma aha ninka dhaqdhaq darkiisa dhaq hooshiisa kala tuur in gurigiisa hagaaji halka kuwii aad dhashayna banaankaas ugu soo tagtay halka kuwii aad dhashayna banaankaas ay yeelan aad ka soo tagtay inta imaadid ninka dhaqaalay oo dhaq oo tir kuwii biri qabriga madaxa dhulka dhigi lahayn aad ka soo tagtay علمي الدين أنت برتد وناجز قرب استاكت الغارة بين أكسوتك تك نيني هبرتين سوكرس بحاك وجي كوات الشيء أو كوبا هنا كوات الشيء ما أد كرسيد أو دقاليسيد أبا هرتت أسكو فكر معها أنا قبل بوحن كوانين لهاي المهدي دش هل إلا بيسدح إيشان يتدوب حي دش بحد دش وحن كوانين لهاي إني دقاليسيد ilmi heeda korsato marka xumaantii dhibaatadana Allaah naga qabto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadii aad ugu cusubtahay subscribe isar hadii aad la joogtin aad u maasantahay si dhow walaal ku soo dhaw channelka walaasha Maryan Cali subscribe isar hadaad ku cusubtahay hadii aad la joogtin like dhac ku